دواء هدي قفكو اسكو أركو استريس بدن وسيد السائل كو سوقري يعني هذا waxa weeyaa maaragtay sheekha faahfaahin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم waxyaabaha dhibtu inaga haysato waxa kamid ah kullay su'aalaha hadii goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la yiraahdo Mr. Nool يعني إنه وحول بيقان وحول بكتشوابي كره علم النفس وحول كما قالنا لكن وحن أجهيون إنه إلهي كتاب كسكوت المامي ألا بذكر الله تطمئن القلوب دو علم النفس وحك والرمو يهاي نفت بن آدم كي يصال الله حصيليه إلهي القرآن كيسوي نوت المامي إن ألا حسكي يوين دي سحسوس سديد يا أعماش الصالحة سمينتو دي بط سجود inay tahay wax qalbiga qofka bini'aadamku ku dawo bal waxaan jeclahay inaan tajribo waydiin sheego waxa jira maanta jirka bini'aadamka waxyaabo lagu ogaaday waxa kamid ah hormoons inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazat dheecaamada jirka bini'aadamka soo daayo way tiro badan yihiin dheecaamadu jirka bini'aadamka soo daayo waxa kamid ah bay yiraahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen مورفينات الدماغ أي في عربي كويل هذا مورفينات الدماغ مورفون كوا دب هالشيء أما العبيل وسخرة ما عسابته الجودة شيء ما عين كان مورفينات الدماغ بيوبحية دكتور محمد علي بار في كتابه المخدرات طبيب كاسي مسلم كاي وحكوت المامية واللي بينه يهاي أقون بيولوجي أما أقون تدختر لماذا كوسا كورداي صدحية الضباط كويحي كدم به حلي إلا هدا واحد دنيا أكتهاي إلا لما بقوله مادو وشركو سود دايو وقضايات كاسكو صابسن لما بقوله مادة بحثي كوشرة أفرتن كم ده أي إلا هدا للرميسين يقولي تأثير كاي سمايا دبتنا وحود دليشان يقولي مورفينات كاس مورفينات الدماغ الله يراها waxay ku bataan buuri ilaahay subhanahu wa ta'ala si tabiici jirka bini'aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamka iyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanu u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buulay mesela dumarku markay uurka leeyihiin ilaahay baa ku badiya subhanahu wa ta'ala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisa uga yaraado jirkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaq tira badan oo maskaxdeeda stresska iyo waxan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay yiraahdaan marka ay umulayso oo laxdada ay ugu dhibta badantay haweenku ay morfinaatu dimaaqu jirku soo daayana ugu tira badantay min ni'am ilaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo la wuulay hadii aan bahashaasi jirku aanu soo daayna gabadhiba dib uma umushan malaha haddana waxa kale oo la og yahay buu maanta saynisku horumarka uu gaadhay Chinese-ku irbada yar baa jiray dadka ku mudaan iyadaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ay dhaqaatiirta Chinese-ku qof qalaan inta irbada yar oo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii amaliyadii suuxitaanka oo kale ku dhacda dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahay Dr. Maxamed Cali Baar waxa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaatu dimaaqa kan ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheekhaasi wuxuu kitaabkiisa soo kale ku tilmaamayaa waxa kale oo la ogaaday buu leeyahay iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha la midi inay badiyaan qofka bini'aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi taasi waxay sababtaa buu leeyahay qofka mu'minka ah inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalika wuxuu leeyahay waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dhikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu marka ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu sida daraaddeed waxaan leeyahay walaalkayga su'aashan soo weydiiyay intilaqan min hada hadduu stress iyo wax la mid yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub waxay ka wariyaan Zayn al-Abidin ayaa waxa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunjicab
bunjigu waa baashan Soomaalidu boocmadowda tiraahdo Soomaalida qaar baa imka walwalaaqdo cabaa la sheegayay geed boocmadow Soomaalidu oran jirtay inay weeyaan bunji bay yiraahdeen cab dabeetana wuxuu yiri bunjigu maanka ma doorisa haaba lagu yiri igada buu wax aqliga dooriyo dooni maaye salaad baan galayaa ida dakhaltu fi salaah buu yiri faf'alu ma bada lakum markaan anigu Ilaahay soo taago idinku wixii qabsan kartaan qabsada uu tukaday bay yiraahdeen intuu tukanayay ayaa la qalay bay yiraahdaan yani markuu Ilaahay soo taagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayay bay leeyahay ala kulli xaal akhi الكريم waxaan oran lahaa awraada iyo dhikriga yaa la ka cabsigaaga badso insha Allah stresskani way ka yaraanayaan ogsoonowna de imtixaanka hadii la guuleysto iyo hadii la saaqado toona wax weyn oo aad weyday ma jirto waa wax iska caadi ah bari la gali karo mar labaad ee wax saa looga warwareynaan ahayn wallahu a'lam sheekh waxaan weydiinayaa hadii aan diido inaan gacan